الله u naxariistay waxa maanta qabuuro ku yaala duleedka magaalada Muqdisho aas lagu sameeyay Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf Axmed Ismaaciil oo kamid ahaa culimadii Soomaaliyeed kaasi oo xalay ku geeriyooday gudaha magaalada Muqdisho. Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf Axmed Ismaaciil ayaa ahaa caalim weyn oo ku suntanaa faafinta diinta Islaamka iyo guud ahaan dacwada isagoona u tagay qaybo badan oo dalka ah. marxuumka oo salaada janaasada maanta lagula tukaday masjidka isbahaysiga islaamka ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socotay labada gole ee dawladda salaadiin culimo oo diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. salaada janaasada kadib marxuumka ayaa loo qaaday qabuuraha barakaad ee duleedka magaalada Muqdisho halkaasi oo aas loogu sameeyay. xildhibaan Cabdiqaadir Jiilaani oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana mid ahaa dadkii aadka ugu dhawaa caalimka ayaa ugu horeyn ka tacsiideeyay geeridii ku timid sheekha isagoona ka warbixiyay taariikhda guud ee Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf Axmed Ismaaciil. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajrin musamma. halkan waxaan maanta salaadii janaasada ku soo tukanay masjidka isbahaysiga sheekhi weynaa ee caalimka Soomaaliyeed ahaa Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf Axmed Ismaaciil. sheekha Allah u naxariisto dambigiisa Allah dhaafo nin ahlu khayra oo xalaal meerada oo waxa weeye wanaaga iyo diin faafinta iyo khayrka ka shaqeeya ayuu ahaa waqti dheerna ku soo jiray faafinta diinta islaamka. wuxuu kale oo xilal ka soo qabtay maxkamadihii iyo cadaaladda wadankan sideetamaadkii 70 iyo wax baa waxa loo magacaabay maxkamadaha beledweyne iyo jawhar iyo meelahaas ayaan filayaa inay ahayd. sidoo kale maxkamadda sare ee wadanka ayuu qayb ka noqday waqti badanna nin diinta iyo barashadeeda ku jiray ayuu ahaa 1956 ilaa 60kii ayuu waxa weeye xiraysid iyo inuu diinta barto ayuu bilaabay. kadibna macaahidii ay Azhar iska lahayd ee wadankan Soomaaliya ku yaalay ayuu wax ka bartay. kadibna min hadrasa ayuu wuxuu ka helay Qaahira iyo wadanka Masar halkaas uu ka sii waday waxbarashadiisii. wadamo fara badan oo uu u tagay sidoo kale waxbarashada ayaa jirtay. waxaa jiray oo kale wadamo kale oo Soomaaliya ka baxsan oo faafinta diinta iyo dacwada islaamka iyo u tagay ayaa jiray ayaguna. taariikhda dheer oo wanaaga iyo diin fidinta iyo xalaal meeradka iyo ku xusan ayuu sheekhu leeyahay. Allah u naxariisto. waxaan uga tacsiyeenayaa geerida sheekha marka koobaad guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan. marka labaad waxaan uga tacsiyeenayaa culimada Soomaaliyeed ayaan uga tacsiyeenayaa. khaas ahaan waxaan uga tacsiyeenayaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay baan uga tacsiyeenayaa. waxaan uga tacsiyeenayaa caruurtiisii gabdho iyo wiilalba xaasaskiisii iyo qaraabada aadka iyo aadka u dhow iyo saaxiibada aadka u dhow ee sheekhu lahaa ayaan uga tacsiyeenayaa. waxaan ilaahay uga baryayaa qabriga inuu ilaahay u waasiciyo jannatul firdaws uu geeyo dambigiisa inuu ilaahay dhaafo meel ka wanaagsan dunidii uu ka tagayna daar ka wanaagsan inuu ilaahay dajiyo ayaan rabbi subxaanahu wa ta'ala uga baryayaa. أنا Somali Cable Muqdisho. bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeegga mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah. e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeegga e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.